نعم. بولشيت اروح عن محي عنيو لا بالله ولي يا الله وحنا كلمان ارك قرمان لقيت وحص ها قرمان لقيت وحص dadka in la kala sooco goorma laga tagay goorma anaga fanka xeer baan leenahay anaga fanaaniin hadaan u nahay ya xeerka aan leenahay wuxuu yahay fanaan haduu meesha imaado in lagu casuumo barnaamijka laga qayb galayo xeer baan u leenahay anigu habartaas daba dhilifumay hooyadood ha wasaan ayadii inta u shaqeysabade hooyadood ha wasaan Allah harkiin ku yaala marka dhalin dadka Soomaali dadkan hadda live-kayga daawanay dib aad ka arki doontaan waxay habartaas ku dhaqantay fiidiyoyadooda waa la hayaa cameraman joogay TV-ya joogay dhalinyaro badan baa joogtay dad kale la helaya de madaxda dhanna way joogan hal share gareeyay live-ka ra'iisul wasaaraha joogay laakiin ma garanayo inuu habartan dulminayso wax ka ogaa kuwa meesha jooga ma quraan bay akhrinayeen war aniga meeshan cidina igu meeman karta kowdhe ma fahamtay hinna waxba igama qaadi karta anigu waan ka tagay brother waan ka tagay waxaas habar khadiijo kale mar horaan ka tagay anigu waxay dheerta mala xasaanadu may dheertay bas anigu xasaanadeeda wasiirnimadooda xildhibaanada waan ku ixtiraamaya laakiin shakhsiyadeeda fogofde waxba igama gelin aniga waxba igama gelin war ilaahay amarkiisa badana dadka qaar waxay soo qaaday wasiirada waa maamo war haday maamada way dhali kartaa iyada la rabo inay gaxshooto wiil yaro dhali karto oo talent ilo fanaana marka inta masraxa ugu imaday yorada iga tag ma ku taageersan tahay aniga afkayga soo fiirina daayada fiiriya aniga hay fiirina ayada dulmiga igu sameeyay fiiriya nimayo Soomaali waxa dhibaato gambinay waa dulmiga la isku fiirsanayo waligiina yaalin qofka hadlaydu soo fiirsan qofka dulmiga sameeyay ma fiirsan Soomaaliyay ma fiirsan waligiina yaalin dabeecada sadleedin dadka hadda meeshan wax ku soo qoray kulligood habartaas difaacayaan aniga oo dhalinyaro talent leh islaantaas way iga lacag badan tahay bullet proof ay wata xasaanad bay leedahay iyada iga xoog badan ma fiirinaysan ayada aniga maxaad iga fiirinaysan dhalinyaro miskiin aan ahay inta diilada islaantaas way ka khaldan tahay wayna ku dulmiday hadda waxaad soo qoraysaa sidaas haddii qabiil wax la isku difaaca askariga aniga qabiil difaac waan leeyahay Soomaalinimo dad ku difaacaysan iyo fanad waa halkeeda ما فهمتين marka xaalku waa sidaas la socda anigu hadda maxaa dhahay aan oomanahay gaariga biyo ima saarna oo man tacbaan lahay waayo intaas ay goon xanaaq dadti ma fahmaysa nin la dulmiyay baana nin la dulmiyay waslaan waayay la dulmiday ya ma fahmtay marka sidaas weeyaan xaaladdu dadka kale waad mahadsantahay sultan waad mahadsantahay dad garabkayga ma weynayay anigu wiilal adiga dadka soo qoray wiilal war aniga wiilashooda iyadaba waxba igama galaan anigu yalla soo wicin aniga wallahi oo billahi xasan ala khayraat hadu soo wicin inaan diyaar oo inaan aslaanta gar la galo oo ilaahay og yahay wax badan waan qaranaya waxa ma sheegin anigu hadda laakiin waan daalanahay waxaan rabaa inaan guriga tago nasto ayaan doonayaa say wax u dhacaan idin la wadaago laakiin khadiija diiri waa dulmilay weeyaan waa cadeeso ma aha qof wanaagsan wallahi ma qof wanaagsan waa qof xun weeyaan oo aftaana laakiin afkeeda ma sha waa beenalay afkeeda maalaysa dadka afkeeda ku gadataa anigu hadda ma rabo dawladda inaan siyaasadeeda galo oo wax ka sheega ma doonayo laakiin naagtaas waa dulmilay waana dulmiday dulmigeedana xasan cali khayr maqraatuka uu fadhiyay
wasiiradiisuna way fadhiyeen la taliyaashiisuna way fadhiyeen xildhibaanaduna way fadhiyeen ma idin dhahayo hebel dadkii barnaamijkaas qaranka dhalinyarada loo qabanayay si haddii loo fiiriyo dhalinyarada qarankan ka mid ahay oo speech kale si haddii loo dhigo weeyaan fanka markii laga soo tago ilaahay baan ku dhaarshay maana xaq u lahayn anigu waxay dhalinyarada kale xaq u leeyihiin macdaan baan ahay mar macdaan baan anigu maanan xaq u lahayn dhalinyarada xaq u leeyihiin soomaaliya runta ilaahay baa isku jecel runta sheega oo gara qofka garle gartiisa siiya qof la dulmiyey weligiin ha baacsanina aniga hay soo fiirnin dhalinyarana way dhali kartaa meeshaad leedin waa hooyada oo kale balda fiiri ka fiiriya aniga inay dhali karto wala fiirso iga awood badan tahay xasaanada ay leedahay xildhibaanada ay tahay xaggaas ka fiiriya no xaggaas ka fiiriya qof xusan ma fahamteen marka xaggaas ka fiiriya weligiin yaaleen dulmiga horboodina dee waxaan anigu ahay anigaas ku ah ma fahamti wax walboon ahayna anigaas ku hadee kun iyo 600 bay daawanaysa live daawanaysa yaa intaas daawataa dee waa cudud aan leeyahay xasaanada aniga aan leeyahay ka badan bay daawan jirta si haddii loo dhigana ma fahamteen marka waa anigu isku kalsoonahay wallahi wa billahi tallahi dad mas'uuliyiin waxay dhan iyo dadaan saaxiibanahay hagelin live-kaas iska daa anaga la hadlayne anigu sharafta aan raadinayo kama raadinayo Khadiija Diiriyaan ku ori hooyaday hadday la mid tahayna waan ku ixtiraamayaa laakiin sharafta aan raadinayo waxaan ka ummadda Soomaaliyeed baan ka raadinayaa sharafta aan raadinayo laakiin kama raadinayo habartaas kama raadinayo mana rabade ayada ma doonayo kama raadinayo sharafta aan raadinayo kama raadinayo Khadiija Diiriya ani sharaf igu filan meesha waan ka qayb galay wixii xoog iyo xiniyo oo qaran leeyahay waan ku istaagay waligay Allahayna volunteer kaas wax ku sameyn jiray anigu ma fahamteen haddana sidii baan ku sameynaa diyaar baan inaan qarannimadaas ku soo shaqeeyo xumaan iyo maxaa la takoor ayada ay sameysay ugama istaagayo maxaa la dhahay qarannimada iyo maxaa la dhahay qarankayga waan sii wadanayaa dhaantada waa dhageysateen waa isxilqaan YouTube-ka ku jirta dhageysta isxilqaan maxay ka hadlaysaa hadda dhaanta isxilqaan yaa hadda dhaanta isxilqaan ku qor YouTube-ka wadarkiisa dhaantadaas aan ugu talagalay anigu isxilqaanna ma ahayn inaan dad garaba ku taageerayo isxilqaan anu qof kasta oo jidka xataa nadiifi waa isxilqaan buu sameeyey anigu haddaan maanta gaadhigii intaan ka dego wadada nadiifa waan isxilqaamay taasaan suugaanteeda ku cabiroon rabay inaan uga qayb qaato wax kale ma rabin waxay diidayna taasay ahayd heesay iyadoo hawlada waa beri u samaysay oo xasan cali khayr lagu amaanayo baa meesha laga qaad arrin guud baan watay wax guud bay ka hadlaysaa tayadu oo permanentiya war ilaa haddii la sunna camlaynayo la ii sheego dee haddii la sunna camlaynayo oo qofna camleeyo aan meesha looga baahan yahay la ii sheego waa run qalad weeyaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo gobolada ka timid baa joogtay isu wada timid dhalinyaro si haddii loo dhigo dhalinyaradaas ka mid ahaa si haddii loo dhigo weeyaan maana nahay nin u xiisa qaba mikrofon waad wada ogtiin nin stage inuu soo istaago lacagna kuma rabin anu lacag ma qaadanin dee runta idin sheegaya weliba hawladu waa beriya nimcaan iyo lacag bay qaateen lacag bay qaateen laakiin anugu lacag maanan qaadan runta idin sheegaya dadkaasaan sheegaya tibi ka yihiin ma aanan qaadanin lacag ma fahamtay xoogayga iyo xeeladayda iyo qarannimadaydan rabay inaan ku shaqeeyo samada garan taas aanan ku imid haddana sidii qarannimadeydii baan ku shaqeynayaa ma fahamtay macdal iyo diyada hadda laga soo maxaa laga soo aniga markii habartu ibaadilaysa nin walba arkay xasan cali khayr arkay markii mikrofoonka hataa fiiri markii hadlaysa hataa ay khudbaynaysay waxaa tir dadka marti sharafta fanaaniinta meesha jooga ay kamid yihiin kaltuun iyo ishaq
كرومي عبد الدانتو كل يوم السلام يا انت يدل من هذا انا محايد هاي ميكروفون كيجي شيء ما صعبه دفور كيجي فيري ساكن سو يستاهل حفله داس وما باهن العق هذا نقطه وما باهن دي dadka qaar baa hadda waxay dhahayaan xalahay taas waa lacag dollar weeyaan lacag anigu ma baahni laakiin qarannimada waajibkayga qaran baan gudanayay saasaan u imid taasaan ku imid anigu nin lacag u baahamay wallahi qof kasta oo hadda dhali Soomaaliya dadka dhalinyarada saaxiibada way yaqaanaan anigu laakiin waxaan caankooda nin walba ogahay nin la dulminayo ma anigu qofkii isku day cabdi dhaantay inuu dulmino hooyada ku wasaya wadogtiin waxba igama qaadi karo يا صومالي حق الله ينتصر وين دعاني حق الله ينتصر ما فهمتي حق الله ينتصر حق الله ينتصر waxa xaq ana ka dagaalama dulmigu wuxuu ilaahay Soomaaliga dul qaadi lahayd xaq kama dagaalamaan de naag wasiirada oo xildhibaanada fanaan dhalinyaro oo talent leh u diiday inuu barnaamijkiisa ka qayb qaato oo ugu yaraan 10 saacadood taagnaa ayada la hadla aniga hay ku soo taagnaanina ayada ay dulmiday ما فهمتي عدي ayada nacamleeyo ana de عدي ayada iyo wixii wata badaana wasa waxba igama galan aniga xishood haday noqotana I don't care anigu maxay galeen ma gawar ka qaba of dadkaas sheegaysan meesha way joogeen waanu sheegay waxaanan sheegin live kan